asalaamu calaykum asxaabtayda kusoo dhawaada channelka waan kaaga mahad celinayaa inaad na soo booqatay haddii aad nagu cusub tahay subscribe noo saar haddii aad nala joogtana waxaan ku leeyahay soo noqod wanaagsan videogan waxaan rabaa inaan uga faa'iideeyo walaalahay soomaaliyeed meel walba joogtaan inaan caruurteena barno xirfadaha nolosha ilmaha hadda korinayna waa loo baahan yahay insha Allah markay weynaadaan meel walbay joogaan adduunyada inay ku noolaan karaan marka waxaa loo baahan yahay xirfadaha nolosha markii ay yar yihiin in lagu bilaabo hadda waxaan ka hadlaynaa ilmaha 2 jirka ah maxaa la rabaa inuu sameyn karo hadda ilmaha markuu 2 sano jiro waxaa loo baahan yahay inuu dharka iska bedeli karo isku day marar badan inaad siisid waqti midda xigta waxay tahay ilmaha inaan barno siday u cadaynayaan cadayga daawada u mari cadayga gacanta ka saar 2 waqti maalintii inuu cadaystaa hal waqti adiga caawi hal waqti isaga ha cadaysto midda xigta waxay tahay adduunyadana waxyaabaha lagu badbaado waxaa kamid ah in gacmaha si fiican loo dhaqo ma ogtihiin gacmaha sida loo dhaqaayo muhiimadda ay leedahay caruurta waa inaan barnaa videoyaalo badan waa soo geliyay channelka si fiican u daawada insha Allah waxaan idin leeyahay ilmihiina waa inaad bartiin sida gacmaha loo dhaqo because gacmaha waa meelaha germska ay ka buuxaan waa meelaha hadhowta haddii maaragta cunto la cunaayo iyo haddii wejiga iska taabanayaan iyo wax walbaba ay gacanta ku wadaan germskaas marka ilmahaaga bar sida gacmaha la iskaga dhaqo midda xigta waxay tahay walaalayaal inaan caruurta barno inay iska ciyaaraan iyagoo ku mashquulaya waxaad u dhiibtay ciyaartay ku ciyaarayaanna aad u daysid marka hamaha soo socdaana ama ha iska fadhiyaano muhiim waxaa muddo 20 daqiiqo ilaa 30 daqiiqo ilmahaas inuu ka mashquuli karo waxay baranayaan markay mashquulsan yihiin keligooda fikiray baranayaan siday maskaxdooda u isticmaali lahaayeen siday gacmahooda u kala dhaqdhaqaajin lahaayeen ciyaarta ama waxay ku mashquulsan yihiin inay maskaxiyan si fiican u dhexgalaan ee si fiican u fahmaan haddii aad jeceshahay ilmahaagina alaabo usoo gadgado waxaa fiican waxyaabaha iyaga qabsan karaan isku samayn karaan iskorkor saari karaan ama isku dhadhajin karaan inaa usoo gadid mar walbana waxaa aad u fiican ilmaha in banaanka la geeyo si ay hawada u qaataan si ay maaragta fresh air usoo qaataan haddii iska maaragtay banaanka usoo carcararaan aad uga fiican tahay guriga in lagu haayo midda kale waxaa muhiima markii alaabahooda ay ku ciyaaraan inay kala xireeyaan waa inay alaab walba booskooda ay geyn karaan midda aad iyo aad ugu muhiimka ah rabo walaalayaal inaan idin sheego caruurtiina waa inaad u ogolaatiin inay keligood cunteeyaan cuntada intay cuni karaan u dhig meeshooda kabacdi markaa u dhigtid wayna iyaga cuni karaan ama gacanta ha ku cuno ama qaadii fargeeta ha ku cuno muhiim waxaa ah inuu isaga cuntadiisa cuno ilmaha markuu keligiis cuntadiisa afkiisa geliyo wuxuu ku baranayaa qaadada iyo afka iyo gacanta iyo sidoo iskula haleeli lahay waa maskaxda aad ay ugu dhisaysaa midda xigtaa waxay tahay oo aadna muhiim u ah iyadana ilmaha waa inaan barnaa inay keligood seexdaan markay yar yihiinba ku bilaaw markay dhashaanba ku bilaaw sariirtooda inay seexdaan habeenkii markii waqtiga jiifka la gaar inaad sariirtooda geysid haddii uu ku anfacay informationka kuu sheega walaalayaal subscribe-ka ha naga ilaawin walaalo kalena la sii sheer garay adigoo mahadsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu